kulanti wacan daawadayaal Ramadaan Kariim mar kale waa xalqadani afraad ee barnaamijka Anta Kafu waa barnaamij TV-ga laga leeyahay Bahrain oo ku abaalmariyo kuwa bulshada waxtarka u leh maanta waxaa marti ku ah sida aad muuqaalka ku arki doontaan Baba Qaliil ama aabihii agoonta دعينا نضيف اليوم لتجربة قيادة سيارة وما كان على علم باللي ينتظره. qofkan aad u jeedaan waa Ustaad Khaliil oo isagu gaari soo kaxiyay oo garbihiisii gawaaridii loo diyaariyay la soo agdhigayo sida lama filaanka waxa uu ka yaaban yahay sida ay waxay u socdaan يلا شباب نسكر الشارع. wadada hal xiraal yiri wadada waxa la soo dhigayaa calaamado loogu muujinayo in qof geesi ah hortooda uu taagan yahay ayna joogsadaan الحين دخلوا الشاشة. shaashad TV uu ku qoran yahay geesi Qaliil ayaa la soo dhigayaa oo ay kooxda Kafu ay diyaariyeen iyagu يلا الشاحنة. gaarigii weynaa ayaa la soo kaxay shaashada ay ku xirneyd waxa ku qoran geesigii Qaliil ee ruuxiga ahaa تبديل الإعلان. boorkii weynaa adi waa u qalantaa ay ku qorneyd ayaa loo soo bandhigay sidaad u jeedaan daawadayaal indhihiisii farxad ayaa ka muuqata oo ilin ayay soo deysay dareenkiisa ayuu xakameyn laayahay miraayadii kor u qaada ayaa la yiri oo sawiradiisii ka sawirnaayeen الحين البنات. hadda waxaa la daarayaa raadiyihii dadka lagu ogeysiinayay geesiga maanta qofka uu yahay بطل جديد نعرفكم عليه في حلقتنا اليوم، واللي يميز هالحلقة أن البطل يسمعنا الحين وهو متواجد عند الإشارة الضوئية في منطقة ديار المحرق. الأستاذ خليل أو أبو الأيتام مثل ما يحبون ينادونه أهل قريته، استحق اللقب كون الأب الروحي لكثير من الأيتام اللي تكفل maanta waxaa marti ku ah barnaamijka Abul Qaliil oo isagu ah qof isku taagay in uu agoonta u xanaaneeyo ninkan waxa uu leeyahay waa walaalkayga iga weyn waxaana uu ahaa qof si madax bannaan waalidnimo iyo mas'uuliyad ku dheehan tahay noo soo barbaariyay أنا عارف إنه هو من داخل ما في ألطف. midkan waa wiilkiisa waxa uu leeyahay aabo waxa uu ahaa qof aad u wanaagsan oo gacanta ugu hayay carruurtaasi بمعنى الكلمة لما ما أحس روح إن في علاقة ما بين مدير وموظف gabadhan jamciyadda agoonta ay ka shaqeysa waxay leedahay ma ahayn qof ما قصر يعني ما شفنا tusaya dadka maamul ama arday inuu wax u dhaxeeyo يعني إحنا نشوفه لما أحد يسأل أي شيء يريد من عنده ما أعتقد يسأل ليش. ma jiri jirin qof uu wax uu weydiiyo waxa waa qof mar walba isku kalsoon ma ahayn qof dadka lacaga iyo waxyaabahaas ama allaab weydiiyaba qof weyn waaye qof xushmad leh هو كل شيء بالنسبة له. قبل 10 سنوات تقريبا إحنا قاعدين في البيت، خصوصا بعد 10 sano ka hor waxaan weynay aabaheena oo geeriyooday balse waxyaabihii uu soo jeedinaya waxaa ka mid ahaa in xil iska saar dadka ku nool wadankaasi Bahrain gaar ahaan familka iyagu dhibaataysan كان يبي يحرص أن
يغطي جميع مناطق البحرين وجميع الفئات. markaan dhisaynay jamciyaddan waxaan ku fikiraynay dhammaan gobollada dalka in laga hirgeliyo oo dadka ay u sinaadaan iyadoo diintooda iyo kalarkooda loo fiirinaynin. طبعا خاصة بمساعدة الأسر المتعففة. waxay qaas u ahayd jamciyadda ayay tiri dadka familka dhibaataysan, balse 2015 waxaa la go'aamiyey in xil la iska saaro agoonta. xiriirka Abu Axmed iyo agoonta waxay ahayd xiriir aad u wanaagsan oo toos ah. ma dhihi jirin aniga waxaan ahay madaxweynaha jamciyadda. waxa uu ahaa aabe qof la dheelaya carruurta ayuu ahaa. Ustaad Khaliil waxa uu ahaa qof noo keeni jiray alaab fara badan. waxa uu noo qaban jiray tartamo waxbarasho, wuuna la ciyaari jiray game ayuu noo keeni jiray iyo sidoo kale shaqooyin kale. wuxuu dhihi jiray yaan liigu yeerin qofka madaxda ka jamciyadda ee Baaba Khaliil ha liigu yeero. ani agteedu waxa ku aasay waalid ah ma uusan na dareensiinin aabbalaan. waxa uu nala ciyaari jiray sidii aabbaha kale. waxa waa qof mar walba ihtimaam siiya ama daryeela dadka. mar walba wuxuu dhihi jiray ilaahay cimriga ha dheereeyo, waxaan doonayaa dad badan in aan farxad geliyo inta aan geeriyoonin. waxaan rabaa inaan farxad badan aan geliyo agoonta. wuxuuna dhihi jiray annaga gabdhoyo waxaad diiradda saartaan sidaa noloshiina ugu bixi lahayd inaad daryeeshaan agoonta. Ustaad Khaliil hadafkiisu waxa uu ahaa inuu farxad geliyo agoonta. waxa uu sheegi jiray mar walba in loo baahan yahay in la daryeelo lagana fikiro. Abu Axmed aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa daryeelkaada iyo carruurtaasi agoonta ah. wiilkan wuxuu ka mid yahay ardayda agoonta uu soo barbaariyey. waxa uu qeexayaa dareenkiisa. waxa uu leeyahay qalbigayga iyo maskaxdayda kama tirtiri karo waxaad noo fashay. gabadhan ardayda ka mid ah iyadana waxay leedahay waan kuu mahadcelinaynaa mar walba. gabadhan waxay leedahay iyadana waxaad ka dhigtay dhammaan agoonta kuwa faraxsan mar walba. hawshana meesha ka sii wad ayay tiri. وأحبك واجد واجد واجد. daawadayaal nala wadaaga aragtidiina waxaa la gaaray xilligii la soo dhaweyn lahaa Ustaad Khaliil ama aabihii carruurta agoonta. waxaa la guddoonsiiyey Baaba Khaliil biladii dahabka ahayd ee uu xushmada weyn uu ku mutaysay. ani waxaan dhan ma istaahil ayuu leeyahay. ilaahay ayaa tani igu karaamay inaan sameeyo. ani wax aan ahay ma laha ayuu yiri. waa wax ilaahay igu ilmaamiyey. mar walba waxaan qadariyaa uu leeyahay qofka dadka dareemaya ee jecel. aad ayaan idinkugu mahadcelinaya ayuu yiri. Abu Axmed adigu waad u qalantaa. Abu Axmed adigu waad u qalantaa. Khaliil adigu waad u qalantaa. Ustaad Khaliil anta waad u qalantaa. الأستاذ خليل أعطانا درس في التواضع. Ustaad Khaliil waxaan ka qaadanay 10 wanaagsan oo bini'aadanimada oo in wanaaga la qabto dadkana loo qabto qalbiyadana loo furo ay tahay. مجله يدلعون خليل أنت كفو. Khaliil adigu waad u qalantaa.